ciyaartooyga haddii la doonayo koob in la qaado waxaa la doonayaa ciyaar wanaag ismaqal dhaqan fiican oo garoonka lala yimaado inay noqoto isku xidhi ciyaarta ah ciyaartu waxay ku halowdaa qofku inuu yidhaahdo gool buu dhaliya ha lagu yidhaahdo oo isagoo duwo ka dheelayo yidhaahdo gool baan dhalinaya ciyaartu waxay asal ku tahay inuu qofku garanayo midka baaga ka bidixda ka ciyaaraya gool dhalinta cidda iskale qaab xataa idinkaa yaqaansan ciyaartiidu tahay laakiin isdhiibka ciyaartu hadday halowdo oo baryahan facebookana waa live gabadh ay ku jirta khadka oo meel kale ay kawinayso xogaa arrintaasi ciyaarta damage bay u geysataa sidaa daraaddeed macallimiintiina way idinla joogaan waxaan u malaya waqtiga inay dhalinyarada aan ahayn waxaanu ma jirin laakiin hadda wax cusub baa soo kordhay in ciyaartooyda lagu habeeyo inay gartaan isdhiidhiibka ciyaartu sida ay tahay waa qori isdhiibkii la ciyaarayo oo kale waa inuu garan karo qofku spaceka ciyaartiisu ay ku eg tahay numberka uu wato iyo spaceka uu ka ciyaari karaa intee weeye ilaa halkee buu gaari karaa taasaa asal ma rabno markaa gool dhalinta waa dhibco la tirsan doono laakiin kooxdoo dhan baa loo tirinaya qofka dhaliyo uma tirin doono haddaan idhaahdo qofkii gool dhaliye baa sidaa la yeelayaa wax kalay keenaysaa waxaase idinka ballan qaadayaa inaan u soo jeesano waayo waxaa loolan jiray waxay yidhahdeen madaxweynuhu amnigu ka hadlaa ciyaaraha iyo dhallinyarada shaqo kuma leh dhallinyaraan ahay hadda waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaa ka walbahaarina shaqo abuuris ciyaartooyga xulka ee hadda gobolka meeqaway wasiir 22 taqriiban 25 badhe waxaan rabnaa accounti waa loo furi nin walba bishii marka dhacday $200 baa ugu soo dhacaysa wuu joogaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga labaduba bajetka loogu talagalay shaqo abuurista dhalinyarada kow waxaa ka ciyaartooyga sanadka bisha bil walbana mushaharkooda 28 hadday waayaan dacwad bay soo qorayaan أنا ما أرانا إلا جول كسوق لكن واحد من كل دار عيال وراك لا يمات سنة بدأ بيسعون دونتا عيال وراك أنا وحوف عن إذبت عيالتين الليلة عليهم جران كبركي لا بحيهم فنان ده الإسكاب حنين نوع دقك حديث اللي ويالهم حناك كلا موتين وحاصلنا وحيوبها أنت إلا إلى عيال وراك وحلا يدير سوا صومالي meel kasta loo qaado meel fokom kuma tagayo laakiin de marna in caadadii goyno Soomaa koobku meel uu mari jiray raadkiisa isaga uu yaqaan taa waxaan rabnaa inuu soo noqdo shicaarka la qaadanayo calaamada astaanta ma aha calanka Jubbaland waa maroodiga weyn waan la soo badiyo maroodiga waa in la soo badiyo waa inuu isagu garoonka aad u yaalo dadka Soomaalida moogta in badan maroodiga ka cabsanaysaa laakiin maradan oo iska badata hadda nina kama cabsanayo waxaan rabnaa marka in la muujiyo ciyaar fiican hufnaan akhlaaq isbaasida kala dambeynta ismaqalka nooca ciyaarta la isugu xirayo sida ciyaartu ay noqonayso intaas u baahan in la maqlo macallimiinta laga dambeeyo macallimiin waa haystaan maanta ragii waxa idin jooga wax badan soo sameyn jiray soo ciyaari jiray waxaan u baahnaa marka in talada la qaato qofka ciyaartooyga talada kama soo haro ha laga saaro ciyaarta gudaheeda istus wax leeyahay ana dhaliyay ana socda ana ka yeelay mara ciyaartu hufnaanteedu waxa weeyaan isku xidhnaanshaha tiimka in la ilaaliyo qofkani markuu arko xataa marka la bedelayo dhalinyarada waxa jira marka la yiraahdo hebel ciyaarta xogaa ama wiilada la bedelo waxay qaadaan xogaa kumbuleesaha sababtoo hadhow markii la noqdo waxa la maxaa laga saaray waxa ay leeyahay marka
وعرفنا مرة إن هوش عسيرة الله تحجري. أبدا مرة واجب مرسل عندي كم هالعلنية.